وأنا قحوتي جاسون بعد يصير سايو كأم من كوجوج كرا بس كم جوج كرا كاس عذاب كيس ما هو كوجوج كرتاب كيس ما كوش قيسان كرابود هاو كوش قيسان كرتابود بس بود أنا وحن ورقة فرنسيس كاربو مجرت يوحن فرنسيس هاي وحن هاي من صومالي وريتش بوتيانا مركا أبو حوربي الله نحرسته وحو آمن سنة صومالي وين بو آمن سنة ما آمن سنين قبل كان صومالي لاند بونتلاند جبلاند وحا صودان وكسو هرشيدي قبيالد وكسو هرشيدي آد بو نعيد شري مربا حسوسنا أيدي إنو كيري متق بايقو قبط يعني قبيالد متق بايقو قبط تلما يعني ها آد بو نعيد شري because وحو أركيدي سببتي كانت بربركة صوماليا وإما كمشاكل dhibaatooyin kan keentay weeyaan Soomaaliya markii ay dadkeedu mid ka ahaayeen oo midaysnaayeen waa la jabin waayay laakiin waxaa la jabiyay markii ay Soomaalidu isticmaashay qabiilka sidaasi waxaa yiri oo lagu xasuustaa naxariistii janno Allaha siiyay wadanigii Soomaaliyeed Dr. Cumar Axmed Malow oo ku caan baxay Dr. Cumar Cismaan Raabi دكتور عمر عثمان رابي وحوها مواد صوماليات وهالجماعة وهذه جوب وتاجنا من نمط الصوماليات وحوها قراء ومدة وعي قلية بربارية هي براء ومدة براء سويال كذا تاريخات إسلامر كان وقديها وكوعي قلية خطرها كسو فول له ومدة مستقبل كدو برنامج كان وكوكومنا دونا دور قيبود وحينكو يجدونا هدي الله إدمو تاريخ دي iyo waayihii nololeed ee Dr. Cumar Cismaan Raabi waxaana ku wareysanay Saynab Maxamuud Wacays oo ah marwadii ama xaaskii Dr. Cumar Cismaan Raabi iyo Ayaan oo ah gabadh u dhalay Dr. Raabi oo inooga warrami doona waayahoodii nolosha dhacdooyinkii ay la kulmeen iyo xogo badan oo ku saabsan taariikhdii Dr. Raabi ugu horeyn haddaba waa kuma Dr. Raabi بسم الله الرحمن الرحيم waxaan oran lahaa anigu Dr. Raabi wuxuu ahaa nin wadaniya ayuu ahaa oo ummadiisana jecel ilaahiisana jecel diintiisana jecel nin aan weligii iyo allihii been sheegin buu ahaa nin aqoon-yahan uu ahaa nin Soomaaliya inay horumarta rabay buu ahaa waxa uu nagu guubaabiyay oo jeclaa inuu noo sheegana waxay ahayd inaan diinta ilaahay unbaa ina bixinaysa ayuu naga yidhi qof kasta oo Soomaaliya waxa maanta uu samayn kari lahaa waxa weeyaan inuu tawxiidka qaato oo sidii carabtaba ay u badbaadisay diintu iyo inoo badbaadinaysaa sababta oo ah miidho weyn baan kala galnay marka waa inaynu hadaynu dad Soomaaliya nahay waad mahadsan tahay ayaan haddaan nafsiisa su'aal ku weydiiyo inkastoo aabaha uu ahaa haddana maxaad ka bixin kartaa waa kuma Dr. Raabi جزاك الله خيرا anigu aabo طبعا wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan nolosheediina maan arag qof sidiisa ilaa imika qof sidiisa ah runtii guriga dibadda dad kasta yani sidoo la dhaqmayay si unbuu la wada dhaqmayay yani daacad buu ahaa laakiin tawgu weyn yani waxaan kala haray wixii saameysay waxay ahayd inuu aaminsanaa hadaf buu lahaa wuxuu yidhi insaanku inuu lahaada hadafka ugu weyn lahaan karayona waxa weeyaan laa ilaaha ila allah saasuu iga yidhi anigu saa iga yidhi marka بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxa la yiraahdaa aniga Saynab Maxamuud Wacays baa la yiraahdaa marka waxaan ahay marwadii Cumar Cismaan Raabi amba Cumar Axmed Malow hadba sidaad u taqaaniinba waxaan u malaynayaa hadduu Kanada joogo Soomaalidu iyo hadday joogaan Djibouti iyo hadday joogaan Carabaha iyo hadday joogaan Faransaba Cumar si un bay u wada yaqaanaan عمر أحمد ملو وأبيه سيدالي ويان
doctor Cumar Cusmaan Raabana waa aabihiisii soo koriyay ee hooyadii guursaday markuu aabihii dhintay isagoo 3 jir soo qaatay agoonnimo ku soo koray hooyadii baa soo korsatay 3 jir buu ahaa Jabuuti laga qoray iskuulka malcaamadda Jabuuti hadana iskuulka ka galay odaygaas wadigii warqadaha u sameeyay buu ahaa marka maxay ahayd alxamdulillah rabbil caalamiin way badan tahay sidoo iskuulka ku galay iyo inuu boormo ku dhashay waa loo diiday xitaa imtixaanadii inuu galo marka detailka waan ku hayaa oo marka aad heli doontaa laakiin haddii la yiraahdo Cumar muxuu ahaa anigu waxaan aaminsanahay siday nimanka saaxiibadii amba ay ummadda oo dhan ba aaminsan tahay inuu ahaa nin ilaahay nin ummadiisa jecel buu ahaa nin wadani uu ahaa nin Soomaali uu ahaa taariikhdiisii haddaan dib u raacno wuxuu ahaa maxay ahaydey marxis buu ahaa oo wuxuu doonayay ummadda si uu u wada simo waxa qurahaatay marxisku dadku waa isku wada shaqo mid ay qaataan mishahar shuuciyiintii ha yiri marka iyuu galay marx iyo waxa soo galay markaas uu taamba ka saari karto oo ummadan the same level laga wada dhigi kara ayuu aaminsanaa markii la xiray wali marxiskaas uu aaminsanaa iyo inuu lawyer noqdo lawyer kaasoo si uu gumaysiga uga xoreeyo ummadda markii dambe la xiray lawyernimadii wuxuu ku joojiyay gobonimo doonkii yaa lagu xiray marka Cali Caarif bay rabay Jabuuti laga qabtay marka Jabuuti oo gabood buu ku xidhnaa marka Cali Caarif baa yiri dil baan ku xukumayaa dil markii lagu xukumay waxa la soo taagay Balaas Rambo meel Balaas weyn oo Jabuuti ku yaala markaas loo galiyo la yiri maanta waa la dilayaa Cumar reer Jabuuti oo dhan way ogyihiin markaas wuxuu yiri ninkii Cali Caarif hal dilo waa soo wada banaan baxay bartaas la joogay waa loo xiray qoorta loogu riday 5 mirirtay ka hadhay la wali Jabuuti Faransiiskii baa haystay yaa madaxweynihii De Gaulle yaa la weydiiyay oo loo diray telex markaas ninkaas la dilayaa baa la yiri ee soo saxeex nasiibkiisa ilaa qofkii ilaahay dilo oo baa dhintay madaxweynihii De Gaulle baa saa intuu eegay buu warqadii yiri maxaa inanka lagu dilayaa markaas la yiri waa ninka fidnada wada waa ninka gobonimo doonka waa ninka Faransiiska dhulka ka kicinaya marka Cali Caarif inuu dilo rabay marka waa in la dilo aniga buu yiri ninkaas De Gaulle markaan anu gobonimada idin doonayay ingiriiska tagay idinka kicinay Jarmalka iyo Mareykanka Churchill miyuu dilay buu yiri maxaad u dees waa inaan keenay war noo soo qaado keena buu ma saxaxaye sidii baa markaa lagaga joojiyay 5 midho u hadhay oo laakiin loo cabaysto lagu dilay Balaas Rambo oo hooyadiina markaa dhacday ilaado ilmahaagii lagu halkaas lagu dilaya ay markaa hooyadiina dhacday dad way socdeen markaas dadkii oo dhan wada yaabeen Cumar baa la dilay maanta kaale la yidhi ba haddana jawaan lagu riday jawaankii baa diyaaradda lagu qaaday ilmaade France baa lagu tuuray France halkan De Gaulle baa yidhi hal weydiiyo laba su'aalood miyaad shaqaysan because jeelka waa lagu shaqaystaa buu yidhi maad shaqaysan mise waxbaad baran baa la yidhi ما يدقوا بركي لقيه وحكر وحب خلاص ما هو حبس داين يورجن مركي فرنسا لقيه حبس داين بكجريه مركز سوري مياد واحد ديان مسوات شقيسان وحول ما يحبان ديان يابان ديبور أنا مش قيساناي ده مركز اللي يقول من جريتي الكل يكحين جامعة اللي يجيني لا بس كل سوء يبود مركز سو متريسكيسا وحن قاتي بيود اللوجا لوجي مركان قاتي بار ديبودي قانون ها يعني محاد كدي باس ديبودي مركي دم فلسفة دو باري بود مركان كقاتي بود ماستر يعني سكجوجي بود وحن كيدي بود نحيد معلم كيجي مدوني فلسفة دان قاليا فلسفة دي بان قالي بود فلسفة دي مركان قالي بودي إن دكتوراه يجي قادني يجي هادي ياد نكال أفضل يجي صار ماشي بود سفير كي وجوجي فرانسيسكا سوماليا وحا أفضوبي نمن جبهة أها أو ساحبدي أها أو لورنجري نينك محمد عثمان هو فن الله يراهضه أو مركا حمر جوجي أي أفضوبي نينك يناكتيسي مركا أفضوبين بيراهدين هداد نينك سود سيدنا لبض عني أنا قحدا إنه كلام محايد عمر خير الله يراهضه أو سجنا يا لحدنا
labadoo Faransi ku xidhan yihiin soo daayo haddaad soo daysid annaguna de waa sii daynaynaa ayuu ka yidhi ninkaasi hadda waa la soo dayn waayey diyaaradduna way gubatay dee adiga naagtaaduna waa dhimateen marka noloshaadu waxay ku jirtaa dowladdaada buu ka yidhi Faransiiska dee markaasay Soomaaliya dee Maxamed Siyaad Barrena dee la isku wada yaacyaacay baa la yidhi Maxamed Siyaad Barre xukumay markaasaa diyaaraddii kolna cadan ha fadhiisato kolna maxay fadhiisato kolba meel la yidhi markii ugu dambeyntii bay cada fadhiisteen intaasoo dahabana ha la keeno ayuu ka yidhi ninkaasi aduu la keen waa la kala wareejistay cadan bay ku kala wareejisteen wuu ogolaaday ha markaasuu siiyey markaasuu yidhi ninkan wuuba dhibay kolna carruurtaydii loo afduubayo ee basaska la afduubayo kolna maxay isagii waa sii daynay buu yidhi wuxuu markaa la heshiiyey Maxamed Siyaad Barre Maxamed Siyaad Barre ka yidhi waa la kala wareejiyay markaa khalaas waa la soo celiyay Soomaaliya keen lama geey Soomaaliya la keen ha Soomaaliya laanti buur baa la keenay halkaas ay joogeen may way fadhiyeen dawladda wax siin jirtay oo ay xagaas ay fadhiyeen maca laanta buur marka dambe la geenayaa laanta buur waxay oranayaan markuu Faransiisku maxay hayday uu yiri Ilaahay taleetusitay gurub calankii baan siinaya Maxamed Siyaad Barre nimanka iga qabow keedi FLCSka nimanka gobernimo doonka iga xidxid buu yiri marka nimankii gobernimo doonka oo dhan buu yiri Maxamed Siyaad Barre hay waan xidxidaya ilaa kugu soo darayaa buu keedi oo khayme markii dambana wuxuu yiri Jabuuti gooni bay isku taagtay guuleed buu dhiibtay Siyaad Barre wuxuu rabay inay Jabuuti ku soo baxo ha markii dambe farsu dhexda ka qaniinay Maxamed Siyaad Barre markaasuu sii daayay ordo dhulkii taga deebuur ad xoreysad oo idaafa buu ka yidhi markaa dee waxay rabeen markaa inay dilaan Faransiiska Cumar nasiibkiisa maalinta iyo Maxamed Ismaan Far way ka maqnaayeen oo may tegin loo yacade laakiin nimankii kale tagay Janaali iyo waa la dilay oo Faransiiskii baa dilay oo bartii baa lagu dilo may galin ma aragtay geesiyaashaas Ilaahay naxariiso jannaha siiyo ma aragtay markii dambe markuu galay Cumar wuxuu noqday maxay hayday oo galay ha markuu may marka ha waxa joogay odaygii baa joogay Xasan Guuleed baa joogay ha Xasan Guuleed marka waxba ma nacbayn ma aragtay laakiin uu soo dhaweey marka wuxuu ka yiri waxa doonaysaa Cumar wuxuu ka yiri anigu waxa ii dhinayd imtixaankaygii ma soo marin toor imtixaankaygii waa inaan soo maro buu ka yiri ma horta markuu Jabuuti joogay wuxuu yiri u shaqaystay xagee lagu dhibay macallin inaan noqdaan rabaa buu yiri waxa loo dhiibay meesha maxay hayday macallimiinta iskuulka macallimiinta ayaa loo dhiibay maaragtay marka macallimiintu soo saaray oo bari école normal waxay yiraahdaan marka macallimiintu soo saaray oo bari jiray isaguna at the same time wuxuu ka dhigi jiray haddana secondary oo haddana macallinka halkana director buu ka ahaa markaas waxa dhacday in yar markuu joogay buu yiri anigu de waa inaan soo maro maxay hayday doctoragayga odaygii Xasan Guuleed baa yiri war adigoo shalay uu lagu soo qaaday Cumaro lagu soo damiintay yaa inaad haddana meeshii ku noqotid Cumaro way weentay marka nin diskar distalida yaa haystay oo ka tagay odaygii maxay hayday digool ninkii madaxweynihii Faransiiska yidhi ninkaasi hadduu noo yimaado Guuleedo 24 saacadood baa siinayna mise 48 hours baa siinayna hadduu hal minute ku daaho waan dilaynaa saxiix Guuleed baa yidhi ma saxiixayo anigu Cumar buu waa Jabuuti damaan Cumar baa ku kalifay Cumar baa wuxuu yidhi waa inaan soo qaato imtixaankaygii isniintan mariyay buu ka yidhi waa baxay marka meesha waxa lagu leeyahay waa inuu dalka 48 hours ka baxo ha waa Faransiiska ma mugelin hadduu noo yimaado oo 4 saacad kaga soo bixi waayo imtixaankiisa intuu soo maro hadduu ka bixi waayo waan dilaynaa bay yiraahdeen wuxuu yidhi Cumar tareenkii baad waay kartaa diyaaradii baad waay kartaa baskii baa kula daahi kara ma naftaadii baad ku ciyaari buu ka yidhi ninkana wuxuu iga saxeexayaa madaxweynaha jiskar leeyahay hadday hal midhir ku daahdo inta aan siin 4 ka saac waan dilaynaa ee saxeex bigeed ma Guuleed maadaa dhimanayo ka yidhi misaanaa dhimanay
صحيح أنا كودا صحيح بودي إلهي نحن كمودي مركز مضاس مرخاتها وصحيح قولت وصودولة مركز أنا كي غير من هستي ليبان أو ده مركز صدح بلاد مالها ويا مركز ورمض والله ما حد نفترض هلاقي بعد كده مركز ما يبود قفكم معنا نوم بودنتها maalin labaad ma jirto buuri haday maalinteedii tahay maan dhimanaya haday kale ma jirto buuri maalintii dilka la igu xukumay ma dhintay buuri ma dhiman buuri soo ku digolri buuri joojiyo soo dir maantana haday tahay tahay maan dhimanaya buuri wuxuu la hadlay markaa nimankii juurigii uu la hadlay ee imtixaanka ka qaaday wuxuu yiri xilligaas aan dhimanaya diyaaradeedu waa xilligaas soo baxaya xilligii buu maray waa la fadhiistay uu soo maray imtixaankiisii uu soo noqday وكسو قال حلقي هرتب يو كسو بحي ها ترينكي دياردي ما كسو شيء يقولي بقى حل انت سالسي انت هذا يقول دافتو دلبو صحيح مدحوينه هيجي دلبو كيد marka imikaba imtixaankayga waa inaan maro labadu soo muslimiye wali caad waxa la Umar adigoo ahaa markisiist sida hadana diintaada ugu noqotaa laga yeesho safarka laftiisa laba qof soo muslimay ayo hada kuwi imtixaanka ka qaaday markaas uu war adigu markaad Hegel iyo maxay qoraysay markay meesha caynka tahay jawaabtii ma heshay buu kayid maya buu yiri daanu lama garanayo adiguna ma heshay buu maya aanu hadaba kitaabka quraankan ka helayo diinteedii waan ku noqdo marka aanu aska muslima kii kale wuxuu anoo kala muslimaan midna wuxuu anoo waxa ku noqonaya Christianism kaygiyo waan ka joogsanay marxiska Umar markaas la soo siiyay sidii buu ku soo noqday guuleed baad alxamdulillah yiri ilaahay nabad ma ku keenay buu markaas uu ha jaal madaxweyne haday taydii toban dhiman lahaay haday taydii ay ma dhimanayo waniga shahaadadiina sitadee buu baasha inta soo sanoodaad jaal ugu xidhna sidaan uga imanaya wuxuu ku xidhnaa 7 sano xoga ha ayu ku xidhnaa waxbarashadiisu buu waday oo kullu la sii kaxayno kullu jaamacadda lagu celinayo jaalka saluudka soo doctora wad markaas uu ka soo baxay marka waxa loo dhiibay meeshan macallimiinta ya ha ayuu sii waday oo loo dhiibay markaas ay haddana waxa iska hor yimaadeen guuleed xabashidii baa lacag siisay dadkii markaas ku nimankii wasiiradii oo dhan muumin bahdo la guriga loo dhisay markaas bankii xabashidii baa ku faraqay lacag markaas war ma anagoo shalay u soo halgameynay buu dalka ayaan maanta la iibsanayna dalkaygii buu ka yiri waa ka guuleed u tagay marka guuleed uu jeclaa wasiiradii laalushka iyo ka hor yimid markaas uu yiri anigu ma qaadanayno inan markaa u shaqeynayso Katooligada hay'ad madaxweynaha Djibouti maxay Xasan Guuleed yaa tir Umarow odayga baa ku jecel intan kala dhaw ku nacib yihiin يا عمر اير ديسو اسكا جوجسو ها اسكا جوج markaas uu maya ma joogayna buudi waxa qadar weeyaan buudi anaga shalay xabashidii ilaa last minute-kii nadiidaysay xornimadayada inay maanta yiraahdaan waa walaalahayo ya alla iibsada buudi xabashida markaa dhulka miyay maal gashanaysa markaa waa dadkii maal gashanaysay oo wasiiradana lacag ku faraqaysay way siinaysay oo waxay u furaysay supermarketyo marka inaan banka ka shaqeeya oo maxay hayday samarada ka yiri war lacagta way wada qaadanaya adiga Umar si baa lagu qaado waa adiga tag buu ka yiri alla ima iibsaday ani 180 kayga kun baa igu filan buu ka yiri lacagtii Faransiiska ee Djibouti ahayd markaas markuu sidaa yiri buu subhanallah wuu aamusay markaas uu tagay madaxweynaha jaal madaxweyne buu yiri waa maxay waxaan buu yiri waxay sameeyeen markaa urur ka hortagaya isaga diini maxay hayday oday Muuse Axmed Dirs la yiraahdo oo madaxweynenimo doonayo ay imika dileen oo laakiin la curyaamiyay ma aragtay oo oday fiican oo wadani ahaa ma aragtay ururkii naagtan ina xayd odaygeegii Cabdalla Kaamil oo oran jiray prime minister ka ahaa iyo niman dibiteeyo badan ayaa markaa ka hor yimid urur samaystay oo qaaday guuleedo oo xirxiray gabigoogiiba daraa la geeyay oo lagu riday hadan isagoo hadda ka soo baxay Soomaali kii wuxuu ka soo baxay Faransiiska haddana kii afweynu ka soo baxay Maxamed Siyaad Bar ee Faransiiska xilay yiri sanad buu ku riday markuu haddana Djibouti midna waa ka guuleed ku riday hadda markaas wuxuu yiri niman waxa war iska joog baan ka yiri waan la tagi war waxaad samaysaa baan ka yiri anu shalan jeel ka soo baxay anu ma gali kare
waxaad ka tiraahdaa walaalahayow anuu aan la socdaa iska daa oo lugna baqow ku joog lugna dadaba ku joog baan ka yidhi anuu haddayna yarha oo 19 jir ha maya buu yidhi anuu weligayna maxay hayda dhanna ma jiraa mihi amba waan ku jiraa amba kuma jiro buu yidhi marka waan idinku jiraa ina mariya waanan diidnay xaq daradana ma doonayno marka isaga diini cabdalla kaamil xaashi cabdillaahi kulli oo dee ku daadu frogii ahaayo dhan waa markii dee ay gobonimadan ku 77 markii xornimada helay waa sanadkii ka dambeeyay waa lagu guray iyagii abahood markii la xirey yaa la soo daayay aduu xogaa sanad bay malaha ku jireen exactly ma hubeen markaas markii la soo daayay waa marka meesha ku muslimi doono markaas wuxuu yidhi baa habeen waa la eedaamay buu yidhi annagoo darro joogna markaasaan aragnay 3 baan ku ahayn buu yidhi aduu markuu soo baxay isagoo tukanayu ka soo baxay ninkii markisiiskii xabsigaa dee doraad isagoo tukanay soo baxay markaasaa wuxuu yidhi markii hore uu yaqaanay dee diinta iska yaqaanay waxoogaa buu yaqaanay uu akhri markii dambe wuu yimiday uu ka soo baxay uu ku bukooday markuu ku bukooday ku kaloo kii la joogay ma wari soo dacwiyey haddana odagaygiiba bukaa la soo kaxay cabdalla kaa waan ku cayr markaasaa la yidhahay nin dhakhtaara loo diray saddexdoodii ku kaloo ag joogay ayuu yidhi kana iga darane ha la qaado isagiiba u dacway markaas kana iga darane qaada weligiiba dadku iska hormariya kii baa la soo qaaday jaamac baa la yidhaha jabuuti joogaa dhakhtarkii baan tegey markaan arkay jaamac ayaa saa arkay lugtii baan soo jeedo sartaa ka soo tagay maadaa ku dacweeyaa dee aniga isagaa soo inankii dhakhtarkeen u diray oo siciid la odhan jiray yaa ayaa ka yidhi war ma odagaygaan ku diray mase ka soo qaad baan ku yidhi dee saynab isagaa ka yidhi walaashadii buu yidhi qaad kan odaygii dhannaayaan la dagaalamee wasiirka ahaa ku kala tuuray kursiga ku riday maxamed xasan guuleed saaxiibkii ahaa ayaabaa yidhi dee maxaan kuu sameeyaa wax falsafad la yidhaha buu bartayoo cumar ma garanay sida jaalka markii laga soo daayey uu soo dhacay ay baxsada la yidhi kii jabay waa kii ugu noqday buu ma idaa farasa la geyn lahaa baad moodi lahayd buu yidhi hadduu baxsan lahaa dadkii kale markay baxsadeen buu yidhi isagu kii jabay buu u noqday buu yidhi markaasuu nimanka ku garaacay buu ka yidhi war nin baa naga jabay kaalaa naxareey oo gudaha naga kuwii kale iskaga tegeen buu isagu kama tegina kii jabay buu u noqday markaasaa lagu riday buu oo la xereey marka waa ninkaas buu yidhi ninkaad u dacweys iminkana kii kana iga darane ha la qaado yidhi isagina uu sii fadhiyo horta buu yidhi may isaga horta la qaado buu yidhi kan walaalkii la soo daweeyo anna marka dambe ha la qaado marka waa ninkaas markii la soo daayay oo dambe la soo daayay wuxuu galay miya siyaasaddu galay may markii la soo daayay lama soo dayninba markay ka soo baxeen wuxuu yidhi oo dacweeyo xasan guuleed wuxuu baasaboor ma siinaayo laasbaasay baan siinaya laasbaasay waa waxay warqad yar oo lagu baxo oo qaahiruun ha tago ha soo noqdo buu yidhi markuu qaahiro tego uu soo laabto dee qaahirana wanakan ka imanay uu ka soo tacabiray maaragtay markaasaan wuxuu u tegey dowladdii faransiiska ee hadda soo saartay ayuu tegey markaasuu yidhi kuwan unbaa ina garanaya buu yidhi maaragtay war ma naga daysa faransiiskii baan ku noqon faransiiskii baa markaa waxaa yimid ninka mitterrand la yidhaahdo haddana jooga madaxweynahaas dowladdii faransiiskaa tiri maxaa tahay madaxweynihii faransiiskiibaa dhowr saacadood gudahood ku soo jawaabay way yaabeen ninka wax alle wuxuu baahdaba soo siiya yidhaahdeen lacagtaa siiya warqadihiisii siiya baasaboor siiya soo kaxeeya yaa la yidhi ninkii baa ka yidhi war maxaa tahay buu ka yidhi marka annaku hiltan baan ku jirnaa oo waxaana dhigtay dowladdii masaarida ka tiri cumar halkan iska joogoo jaamacaddayada ka dhig alasar wuxuu yidhi af carabeed ma aqaan af ingiriisina ma aqaana buu markaa kama dhigi karayo anugu faransiisu baan aqaanaa buu markaa kuwii aan usoo barto un baan ka dhigaya halkii baan faransiiska imanay saa michel meel la yidhaha baan imanay markaan imaneen tegnay waa markaa yaabaa haddana waxaa la soo diray wafti dhan baa la soo diray waftigaasi waxay u yimaadeen dowladdii faransiiska waxay yidhahdeen ninka ha nagu siinina political assignment cumar baa loo yidhi meel baan ku jirnay markaasaa la yidhi cumarow dee annagu waan arkaynaa laakiin iyagu nama arkayaan
waxaa la yidhi cumaroo nimankaa ma garanaysaa markaasuu yidhi haa waan garanayaa waa hebel waa hebel waa hebel buu yidhi waxay u socdaan ma garanaysaa markaasuu yidhi maya ma garanayo waxay yidhaahdeen buu yidhi cumar ha nagu siinin political assignment dantayada annaga xaggan annagaa xakunno faransiis dantayada ayaan kuu siinaynaa adaan kaa fadhiisan weyni oon kaa joogi kar weyni waanu kuu sheegnay imikana halkan iska fadhi waxaad doontaba annagana weydii bay ka yidhaahdeen magaalada gal France aqalkaad doonto soo kirayso warqadahaagina annagaa ku siintay wuxuu nin kastoo faransiis xaq u leeyahay iyadna u leedahay ayaa laga yidhi anuu markaa warqadaha faransiiskaan haystay oo hortii baan tegay ahayd oo arday baan ahayn markaas baa wuxuu yidhi waa yahay waxaa laga yidhi haddaad warqadihii faransiiska doonaysana waan ku siinaynaa wuxuu ka yidhi maanoo shalay kula dagaalamayay iyaan maantana ku odhan buu ka yidhi warqada faransiis baan ahay xaashaa lilaah buu yidhi war aniga qaxootigaygaasuun baad isiinaysaayo kaa un baan ku joogi karaa mise kuma joogi karo waa kaa socdaa buu ka yidhi ma waad ku joogi kartaa buu ka yidhi maan ku shaqaysan karaa buu yidhi haa waad ku shaqaysan kartaa buu yidhi bas buu yidhi anuu waxaan warqado faransiis kaa rabo ma jirto iyo waxaan faransiis ahay waxaan ahay nin soomaaliya oo reer jabuuti aan ahay yaad ku qoraysaa buu yidhi nin faransiisa miih nin warqado kaa doonayna miih waana shaqaysanaya macallinnimadiisibu iska galay uu noogu shaqayn jiray oo markaa uu meesha ku deganaa markii dambe wuxuu tegey baadhis cilmi buu sameeyey baadhistii cilmigana wuxuu u tegey soomaali u tegey maxamed siyaad barre ilaahay naxariiso janna ha siiyee oo markuu horena jeclaa ayaaba yuu u tegey oo xidhay si gacmo furan qalbi furan buu kusoo dhaweeyey markaasaa wuxuu ka yidhi cumarow de waan ka xumay wixii dhacayba bini aadan baan ahay waan qaldamay waan idin xidhxidhay been bay ii sheegeen imikana waxaad maxay hidi rabtidba dalku waa dalkaagi wuxuu yidhi anu waxaan rabaa inaan baadhis cilmi sameeyo inaad igu gargaartiin ayaan rabaa buu ka yidhi baadhistaada cilmiga samee waa lagu daabacayaa buugaagtaada sidii buu ka yidhi dee sidii baan markaa faranse ku deganayn uu baadhistii cilmiga ku samaynayay alxamdulilahi rabbilcaalamiin oon dee ku noolayn haddii alaydma waxaad naga sugtaanba waa qaybaha dambe ee barnaamijkan oo aad uga bogan doontaan dhacdooyin cajiiba oo ku saabsan waayihii nolosha ee doctor Rabi tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.